adigu ilaa 300 adigu 8 guri bay ahaayeen kii bay ku jirtay hadday ugu yar tahay 40 dhowr boqol arday bay ahaayeen waqooyiga oo dhan ka yimid burcay ka yimaadeen hargeysa ka yimaadeen laakiin waxay u badnaayeen sanaag laakiin boorama xataa qaar baa ka yimid qaar baa berbera ka yimid qaarba meel bay ka yimaadeen fasaxa waxaad imanay 2 jeer baan la fasaxay waxaan iman jiray xagga reeraha u tegi jiray ama miyigaa tegaysa ama tuulada ama kadhow markaad noqonaysana sidii baad noqonaysaa school feeskii baa iska bixinaysa xaggaa tegaysa marka annagoo kale maadaama buraan iyo ka nimi reer baa waxaa lagaaga marka aad iskuulka ka imanaysa iyo xoogaa lagugu dhiibayaa oo la oranayaa qof dukaan leh oo kale anu mid aanu qaraabo nahay oo xagga hooyada aanu qaraabo ka nahay baa dukaankiisa oo kale baan saaranahay markaan imaado oo nooliga iyo maaragtay iyo waxaasu iga sii bixi odagu lacagtana ka sii qaatay baa odagaa bahaya 4 sano anagoo meeshii ku jira sanadkii horta waxaa nala geyn jiray markaad 7 ka baxayso badanaa waxaa la geyn jiray meel visit ka duwan ceergaabo wuu bartay ma ogtahay marka dowladnimadu qiimaha ay leedahay baa ardada la tusi jiray marka waxaa lagu geynayaa burco oo kale xafiiska governorka iyo maxkamadaha iyo booliiska iyo meel dee dowlad dhabay ka shaqaynayso baa la tusi jiray ardada marka visit baa la oran jiray grade 7 kaana taga anagu grade 7 ka yagii visitkii already waa 61 ma ogtahay oo dowlad baa يا دعواتك أنا مركا actually waa 65 baan maray 64 marka 8 baan ima 7 baan anaga waxa la yiri kuwan Mareykanka baa intik markay dhiseen ayaa la yiri dad hal soo qaato marka iskuulada burco kale regionka la tagay waxa la yiri ardada waxaa la weydiinayaa maxaa rabtaa marka 7 waa ka baxaysaa secondary baad gelaysaa ma macallimadaad gelaysaa ma TTC daad gelaysaa waxaasaa la dooransiin jiray maxaad rabtaa inaad marka annagu waxaanu qoranay TTC dii macallinimadii baan anigu qortay marka annagoo dhowra waa nala qaaday imtixaankii kuwii Mareykanka ee ka imanayay bahalkii baanu la kulannay burca imanayay baa naloo geeyey adigu ilaa 5-6 shan meesha joognay interview baa nalaga qaaday ka waran saas ka waran ingiriisiga aan xoogaa jalqin karo ku hadal already disco baa wax noo dhigay oo cajiib oo ninkii hindigay waa naga haray hindigii marka waxa dhacday imtixaankii nalaga qaaday waa ku baasnay waa nala soo celiyay dayaxaan ku soo noqonay laakiin imtixaankii waxaanu galnay bahalkii grade 8ka waa baas garaynay bes waxa la yiri nala yiri qaarkayo kulligayo ma ahayn anigu aan ku jiro imtixaankii bahalkii waa baas garayseen marka intik baa tegaysaa xamar waa horaabal naloogu sheegay anagoo aan weliba meeshaba dhammayn bes markaasaan halka ka baxay marka fasxi baanu galnay yani waa naga dhamaaday iskuulkaas xamar baanu aadaynaa meeshii baanu tagnay dad badan xarbi iyo baa nagula jiray waxaa nagula jiray dad badan oo adigu laakiin intaanaan gelin meesha imtixaanka yagii baa waxa la yiri aan ku burca ku galay baa laga ashtakooday waxa la yiri waa loo eexday سؤال ما تقال مركز اللي الامتحان هل علي أنا جو الشم بقول لح بقول ما لهاس وحمل امتحان كي كوب قال لي يا امتحان كلام شيء ها امتحان باللي قال كان قرال وي كان قرال ما هين كان سوحي جس إيجي يعني إنا كوه اللي كرت الإنجليزي ده يسيا هيد وحي ما عرفتي
gala baa la yidhi imtixaankii baanu gallay xamar ku gallay annagu markii hore waxaan ku talagalasay yeermadiina loogu yeeray imtixaankii baanu ku baas aanu dadki ku baasahay meeshii baanu gallay konton annagu abaa nalaga qaaday waxaan adigu halkaasaan markaa bilownay waxaa noo dhigi jiray adigu maraykanka kuwan maraykanka ah iyo kuwa soomaaliya nin bandi la oran jiray ma aqaan inaad taqaanay baa markaa dhiinka ahaa oo reer soola adigu markaa maraykanka ka yimo masters haysta waxaa kaloo meeshii adigu macalimiin isku soomaali iyo bahalkii bay u badnaa meeshuba wax waliba raashinku waa firi wax waliba waa firi lacag baana nala siiyaa konton shilin bishii baa nala siiyaa ha baa nala siiya waa lacag badan bawaag iyo baanu ka gadan jiray noofalada iyo aan soo magaaladan kasoo gadan jiray markaa 3 sanaan ku jiray meeshii adu markaa macalinimada nala baray ha macalin primary aa lagu talabarayaa waxaa lagu barayaa saa wax u dhegeysa saa isu taagaysa saa maadadiina waa lagu barayaa ingiriisiga siiba qoraalada lagu barayaa oo yani sida wax loo qoro sida waxankaas midda kale macalinimada markaad bilaabayso waxaa lagu barayaa inaad diyaar u tahay waxaagii oo dhan adoo haysta duruustii lagaa filayey adoo haysta oo iyo sawiradii iyo wixii waa diyaarsanaysaa shandaday kuugu jirtaa badan bahal yaroo wax lagu dhedhejiyo oo loogu talagalay inaad ardada wax ugu muujiso waxaanka markaa waxaan ku jiray adigu 3 sano waa dhamaysanay waxyaabo badan sheekooyin badan baa naga soo baxa intii waxaan ka xasuustay ugu cajiibsanaa markaan ogaanay inaanu hartinahayba nin guntane la oran jiray ma aqaan meelu ku dambeeyey ninkii oo reer gaalkacayaa ayaa basket baa la cayaari jiray markaa waxaa jiray kuwa Ethiopia ka yimi oo kasoo baxsaday dee kasoo hoyadii baa dad badan baa yimi markaa laagse iyagoo jaamacadda ku jira bay ka yimaadeen markay meeshii yimi shaqo male waxba male intigtaasoo la gelayay bay arkeen waa galeen markaa nin weyn oo isagu naga weyn baa basket baa la cayaaraa guntanahaas iyo isaga iyo baa basket wada cayaaraya markaasuu adigu hadee guntanuuna nin bilaa buu ahayo saasoo dhag reer gaalkacyo saasoo dhag buu kaga dhigay markaasuu kan waa ka daba ordaya waa xanaaqo yarkiibu dil siiyay dab waa dhacay ilkihii baa male waxaa ka dhacay adigu ilkiha koroo dhan baa ka daatay rifeer wuxuu tegey bahashii meeshii rifeertaa la goosan jiray berigaa dac uu tegey wixii waxa lacag badan baa loo maaqa 700 oo shilin berigaa baa lagu xukumay baa adigu la soo xukumay marka ina cali warsame ma garanaysa kii wasiirka mar noqday oo markaa isaguna arday oo naga horeeyaan labadaas annagu waxaanu nahay fresh yani kii kuwa bilowga baana soo dhex galay markaas wuxuu yiri waraale kontonka inaan qaadanana de waa la wada ogyahay moogta wuxuu yiraahday dhageyso war nin innagaaba la haystaa lacag keer muxuu ahaa ninku qaaraanka muxuu ahaa dee nin hartay wey waa kaas waxan kaas adigu akhirkii lacagtii nalaga qaad kulligay waxyaabo badan adigu meeshu aad bay u fiicnay runtii waxyaabaha kale oo ka mid ahaa waxa weeye gabdhaha 2 gabdhood oo keliya ku jiray waxaa soo arday oo macalinimada baranayay hadda mid waxay ahayd reer sool midna waxay ahayd may reer boorama yahay ha mid qamar bay ahayd gabar la yiraahdo halka ku aragtay halka mar bay noogu oo u shaqeynaysay kuwan iigad mar oo aan iskala saan jiray qamar xurun bahalkii tuu hees jiray ninkan hadda ka hadlaynay Faisal ha oo ma gabadhu heesay walaasheed wey labadaas baa nagula jiray
oo nala dhamaystana ha nala dhamaystay adigu wixii wadnay ka baxnay macallimiinta si fiican bay wax u dhigi jireen waxaan xusuustaa beriga macallimiinta wax noo dhigay Catherine Mariano odayga Michael Mariano gabadhiis ha macallimad noo ahayd xisaabta dhigi jirtay waxa dhigi jiray gaal la yiraahdo Balmer cawar baan oran jiray si fiican wax noogu dhigi jiray laakiin waxa weeye ardaydu wax maqlaa wariya Balmer cawar baa soo socda Balmer cawarkii buu maqlay wuxuu yiri was Balmer cawar ardadii dadkii buu weydiiyay Balmer cawar maxay tahay markaasaa la yiri waa kii shalaa xanaaq وعيد ددحم باتين بالاyo baas ya marka kaasuna mid yaani mid buu ahaa togane marbu wax noo professor togane marbu wax noo dhigay ha minaneedka isagoo markaa jaamacadda Mareykanka ka soo noqday sanad buu wax noo dhigay markaa waxaan antigu waa hal program kaliya weey education macallimiyo iyo xisaab waa dhiganaysaa physics waa dhiganaysaa science waa biology waa dhiganaysaa wixii oo dhan waa dhiganaysaa laakiin waxa ugu weyn meesha pedagogy weeye iyo macallinimo iyo waxa